siyaaradani oo lagu xusayay sheekii caanka ahaa ee Sheekh Cabdiraxmaan Suufi oo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxweynaha Puntland, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiirada arrimaha gudaha, awqaafta arrimaha diinta, dhalinyarada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ay kamid ahaayeen Cabdisamed Macalin Maxamuud iyo Qaliib Cabdulqaadir Macalin Nuur ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. boqolaal ruux oo isugu yimid siyaaradan ayaa waxay qaadayeen nabi amaano kala duwan. wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Baqdaadi ayaa isku imaadkan ka sheegay in Sheekh Cabdiraxmaan Suufi uu ahaa shakhsi kaalin weyn ka qaatay barashada diinta Islaamka. Sheekh Suufi wuxuu ku mutaystay arrintaas ayada. Sheekh Suufi wuxuu ku mutaystay wuxuu ka shaqeeyay Ilaahay wuxuu ka raali yahay. Sheekh Suufi wuxuu soo saaray jiil Ilaahay diintiisa barta oo dadkana bara. sheekha taariikhdiisa waxaa ka mid ahaa inuu ahaa qof ku dhagan shariicada islaamka. madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas, wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jelaani Nuur Iikar ayaa bogaadiyay siyaarooyinka noocan ah ee bulshadu isugu timaado. muhiimadda ugu weyn waxa weeye isu imaatinka ay xuska sheekhu runtii ayadoo ay sida muhiimad u tahay xuskiisa iyo imaatinkiisu ayaa haddana waxaan ka muhiimsan intaana muslimiin meesha isugu timaado in ay danta guud iyo mujtamaca Soomaaliyeed in mar walba la xasuusto oo loo duceeyo oo wanaagga iyo horumarka la iskaro. waxa Soomaalida la yiraahdo afka markii laga reebo waxa mideeya oo Soomaalinimada asalka ka ah diinta. marka hore in diinta lagu dhaganaado madax iyo shacabba oo diinta Ilaahay dadka waxa u roon isku hayn kara waa diinta Ilaahay oo munxarifka ahayn oo la bedelin in diintii loo laabto lagu dhaqmo dalka iyo dadkana loo duceeyo. maxaafisha noocaan oo kala ah looga faa'iideysto ducada dalka iyo dadka. marka uu leeyahay amin dul buldana wa amr bil imrana bal hasitha min ilana sakinha mulana waa marka isku dayeen isticmaalka inay mustaqbalka qabsadaan. saas oo Ilaahay u bariyaa marka uu soo dhinaca arrimaha bulshada sheekha waxaa la sheegay in maalintii uu baxay oo suuqa tagayay oo fiirinayay duruufaha dadka caadiga ku nool yihiin oo weydiinayay sicirka suuqa waxa lagu galo. markay yiraahdaan shacabka ay qayliyaan dhibaatana ay sheego inuu dhihi jiray sicirkii hore ugu galo inta kale oo zaydka ana bixinayo dhinaca bulshada dhinacaas oo kale. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo hadal ka jeediyay siyaarada Sheekh Cabdiraxmaan Suufi ayaa sheegay in xukuumaddu ay garab taagantahay culimada Soomaaliyeed, wuxuuna xusay in bisha Mawlid ee soo socota xilliga dhalashada nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee la fasixi doono shaqaalaha dawladda. bismillah kuntii farxad weyn oo tabar siyaasadda inaan ka hadlo maanta waa maalin waxa weeye xasanaad inaan quraan ku akhrino masaajidka iyo sheekha uu tufno ummadda Soomaaliyeed oo dhaantasana uu tufno kuntii in Ilaahay dadka ka saaro. marka kuma sii dheeraanayo. assalaamu calaykum waraxmatullah. waxaan idin sheegayaa arrintii mawlidka ee uu ka dhawaajiyey Jelaani xeerkii horeeto ee dowladda u degsanaa ee shaqaalaha ku jirta maalinta mawlidka inay fasax tahay. marka insha Allah waa xeerkaas ayaan soo celinayna cusboonaysiinayna waana rajaynaynaa in fasax maalintaas hadii Ilaahay ummadda dhan u noqoto. Cabdifataax Xasan Faarax, Universal TV, Muqdisho.